السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago xog muhiim ah oo ku saabsan kambaniga caanka ah ee CG Style. Waxaan ogahay maanta oo aaminsanahay cid kasta inay xog fiican ka haysato kambanigan CG Style maadaama YouTuberska Soomaaliyeed oo dhan ay si weyn oo faahfaahsan uga hadleen. Anigu ma doonayo inaan ku dhaahdo kambanigu waxa uu qabtaa, kambanigu waa waxaas, kambanigu shaqada noocaas uu qabtaa, sidaas uu lacagta ku bixiyaa, ma doonayo. maadaama xogtiisa si fudud ku heli karto oo in badan hore laga hadlay. Hadda waxaad isweydiinaysaa maxaa uu kaga duwan yahay ninkan oo ku sheegaya oo ka haya kambaniga CG Style. Dibka ugu weyn haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu ahaa maadaama ay ku adkaatay sidii commissionkii ay ka shaqaysteen orderskii ay u iibiyeen kambaniga CG Style ay ku adkaatay maadaama dalkeenu aanu lahayn kambaniyo waaweyn, maadaama ayna jirin bangiyo caan oo dalkeena ku yaala, maadaama aanu ahayn dad si weyn loo aqoonsan yahay ama dal si weyn waxa weeyaan u horumarsan. way iska hagaagi doontaa kasto hagaagi doonaa insha Allah. Haddaba waxaan kaaga hayaa bushaaro iyo wado fudud oo aad ku gaadhayso kuna helaysa lacagtaadii iyo commissionkii aad ka shaqaysatay kambaniga CG Style weliba wado fudud oo aad u sahlan. wadadani maaha wada ku dhibaysa, maaha wada aad meel fog u marayso, maaha wada wax weeyaan akoomo fara badan inaad samaysto ku kalifaysa. waa wada yar oo simple ah oo si fududna ku helaysa lacagtaadii aad ka shaqaysatay kambaniga aad xaq u lahayd aad waqtiga gelisay aad u baahantay inaad kala soo noqoto. haddaba waxaa jira bangi noo fududeeyay inaan kala baxno Binance-ga lacagtii aan ka shaqaysanay CG Style kadib markaan ku deposit garayno aan ku soo ceshano ku soo withdraw soo dhaano ee ku shubano Binance-ga sidii ayaan lacagtii noo kala sii baxnaa iyo dib ku taagnaa. waxaa jira bangi noo fududeeyay arrimahaas oo dhan. bangigan waxaa laga leeyahay wadanka Ingiriiska, waxaanu chance 100% u yahay dadka ku nool gudaha dalka Ingiriiska iyo sidoo kale wadanka Jarmalka 100%. waliba dadka wadanka Jarmalka ku nool waxay u tahay faa'iido weyn maadaama Soomaaliyeed ugu badan maanta ay u joogto Jarmalka sidii dhulka Soomaaliyeed oo kale. haddaba bangigan waxa la yiraahdaa Revolut Bank, waana bangi caalami ah oo fududeynaya lacagta aan kala baxayno Binance. Binance ayay ahayd programka ama dibka ugu weyn sida aan lacagta uga sii bixi lahayn oo wada dheer sarfiyo kale, programyo kale, kambaniyo aynaan arrimahooda saxaynin in la sii mariyay. haddaba waxa fududeeyay bangigan la yiraahdo Revolut Bank oo Jarmalka ku yaala oo sidoo kale Ingiriiska ku yaala. laga yaabo in wadamo badan ka jiro, laakiin sidaan ogahay wuxuu si rasmi ah uga shaqeeyaa gudaha dalka Jarmalka. haddii aad tahay qof ka cabsanaya lacagta ay dawladdu siisay caawimada ah inay ogaato kadib markuu si bangiyada kala soo bax bangiyada ku yaala dalka Jarmalka sidoo kale dalka Ingiriiska iyo meelo badan oo kale ba lacagtii aad ka shaqaystay CG Style markaad Binance-ga ku soo wareejiso, haddii aad ka cabsanayso in lagu ogaado dabadna dawladda ay ka goosato guunaday ku siinaysay, waxaan hayaa wado fudud waxaana ku fududeeyay bangiga la yiraahdo Revolut Bank. haddaba si arrintaasi kugu hirgasho waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso website-ka ay leeyihiin CG Style. waxaa jira website-yo badan oo fake ah. linkigan aan hoos ku soo dhigi doono waa linkiga saxda ah ee website-kooda CG Style kambanigan leeyahay. haddaba raac linkigan ku soo dhigay description-ka YouTube-ka description-kiisa ku dhufo iska diiwaangeli. intaa kadib waxaad u baahan tahay kaliya haddii aad tahay qof gudaha dalka Jarmalka ku nool inaad samaysato waxa la yiraahdo Binance. markaad lacagtaada kaga soo wareejisato kambaniga CG Style aad ku shubato ku soo withdraw ku soo dhaxdo waxa la yiraahdo Binance-gaaga, waxaad u baahan tahay kaliya inaad tagto bangiga Revolut Bank oo aad kala soo baxdo lacagtii kugu jirtay Binance-ga. simple waa wax yar fudud, maaha wax dib kugu qaadanaysa. haddii aad ku deposit garaysto $100 oo ay kugu jirtay waxa la yiraahdo CG Style kambanigooda oo ay halka kugu jirtay oo aad orderskaaga shaqaysato bisha oo $150 ka hesho, waxaad u baahan tahay sidii aad gula baxaysay ku wareejiso Binance-gaaga markaad ku wareejisato tag Revolut Bank haddaad ku nooshay gudaha dalka Jarmalka si fudud uga soo bax. simple waa wax yar iska fudud, maaha wax dhib iyo waqti iyo arrin dheer kugu qaadanaya. kaliya waxaad u baahan tahay sidaan dadka qaar scam-ka lagu sameeyay loo qalday aanay kugu dhicin inaad raacdo linkigan ku dhigay description-ka, aad iska diiwaangeliso, process-ka si sax ah u marto oo aad linkigan raacdo oo iska diiwaangeliso, form-kaagana buuxiso kadib Binance samayso. fursad labaad oo ugu faa'iideynayo oo aan kugu sheegayo qof haddii aad tahay ku nool dalkii Soomaaliyeed Soomaaliya, Somaliland, Jigjiga, meelii Soomaalida ku noolay
waxaad samayn kartaa kadib markaas diiwaangeliso eed linkaga raacdo ee aad hubsato inaad iska diiwaangelisay kambaniga website-kooda la hadal qof ku nool dalka Jarmalka oo family-kaaga ama aad si weyn ugu kalsoon tahay u diro $100 oo lacagta ugu yar lagu shuban karo kadibna si fudud uga shaqeyso simple ma wax waqti kugu qaadanaya ma wax arrin dheer kugu qaadanaya kaliya markaad lacagta kala baxayso Binance uu leeyahay qofka dalka Jarmalka ku nool oo family-kaaga ku kalsoon tahay ama asxaabtaada aad ugu kalsoon tahay iga soo saardhay dad xogtaada u dirto $100 labadaada $100 saddexdaada $100 ku qaad adigoo Muqdisho Burco Hargeysa joogaya dalkii si fududna ku bixi order iska yar ee laga rabo ee kugu qaadanay 10 daqiiqo ee website-ku leeyahay haddaba haddaad u baahan tahay wax caawimo ah oo arrinka laga caawiyo waxaan ku siinayaa nambarkayga WhatsApp-ka aan kugu soo qorayaa qaybta description-ka hoose igala soo xiriir sidoo kale waxaan ku siinayaa dad ku nool gudaha dalka Jarmalka oo si wacan uga shaqeysta arrinka oo hawi si wacan uga soo baxay information-kaas iyo xogtaas oo dhan haya oo iyaguna ku hagaya oo caawimo weyn ka siinaya nambarkan xagga hoose description-ka ku dhigi doono igala soo xiriir